ويا هير قرنا قرب كاوين كحسبية يوفتي هجامينسو ضمان ما راح ذبقن كا مشرحين تهلكن شوجا مشرحنا إنه أنت مرتضى قلنا هاي مع سيد الدكتورة يو ضمان ددوينها كالدون شرفت يا معموس خله يبهذا الصحافة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهرين وعن شعر هلكن أن تعسوا قدروا الله ونحرسته إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا عبد الله إسماعيل عبد الله جوري وهذا وين ومقالة قبل كاه وما أنت جيريودي قيس كيسي قرابدي علمدي يددوينها قبل كاه عليه الصبر إيمان إلى هاي السجنة قبرك هاو نوره مرتلة عليه هكذا أنتي كوريسنا إلى هاي هاو نحرسته أنت أمرك لجي ما دو آديات بانو فرح سنة رنتينا كسوق قيب قلنا مناسبة أينو مرتضى وقلنا هاي شاعنتا حلبان نمضى حلبان أحمد عبد موسى on aad iyo aad runtii u habalyeeyno xildhibaan Axmed anigu waxaan u aqaanaa shakhsi gola waxa kale oo dhan marka laga yimaado waa nin dunnimo u dhashay waa nin gobeeda ilaahay runtii ha barakeeyo hana ku asturo mas'uuliyadda loo doortay wuxuu ka mid yahay dadka aanu kow ka nahay ee markhaatiga ka nahay isagoon xilba haynin maadaama hargeysa degan yahay arrimaha gobolka wixii hargeysa looga baahdo inuu ka shaqeeyo isagoon xilba hayn runtii intaanu xildhibaanka ahaana waan ka warhaynaa haddii uu soo baxana ilaahay idinkii wax rajaynaynaa inuu wax fara badan uu gobolka iyo qarankaba ku soo celin doono aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa una hambaleynaya marka intaa laga yimaado waxaan jecelahay inaan isna u hambaliyeeyo cabdiqaadir cilmi cabdilaahi oo ahaa musharax u taagan golaha wakiilada oo runtii halkan ka cadeynaya inuu tanaasulay walaalkii Axmed Cabdi Muuse doorashaynu ku jirnaa dimuqraadiyad baynu qaadanay waxa loo baahay cidii shuruudaha buuxinaysaana inay soo sharaxdo dadweynuhuna cid ay ku qancaan inay aynu dal iska curdinanahay xeer jajabna uu jirayo baarlamaanka oo kale maadaama uu codku badan yahay inay marka aad iyo aad baan ugu habaleeyna runtii cidii waxa weey loo taliyo ee talada qaadatana runtii aad iyo aad baan ugu duceynaynaa cabdiqaadir cilmi cabdilaahi ugu maasan tahay waana wax lagu yahay weey marka inta laga yimaado xisbiga kulmiye musharaxiinta ilaa imika shaaciyay iyo ku soo jiraba gudoomiye waxaanu idinka mahad celeynaa inaad dadweynaha u soo bandhigteen dad u qalmay iyo hadday tahay heer degmaba halkan hore waxaynu u joognay munaasabadii injineer cabdikariin oo sharaxnaa maanta waxaynu u joognaa Axmed Cabdi Muuse aad baan u mahadsantahay xilliba maanta waxaynu u joognaa Axmed Cabdi Muuse horena waxa xaflad loogu qabtay aqoon-yahan Cabdirashiid Haybe runtii saddexdooduba waa dad inay talada dalka ay qayb ka noqdaan dadka kale runtii pipeline-ka ku weynbale oo abwaanku ka mid yahay aan wali officially xisbiga oo isaga shaacin aad iyo aad bay runtii iyaguna ay munaasabka runtii ka taliyaan sida loo baahayna waa sida waxaynu haynaa waa mas'uuliyadu madeed ee la rabay laga baahay cid u cuntanta inay runtii timaado dadkana aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa xisbigana waa ku hambaleynaynaa aad iyo aad baa dhamaantii mar labaad iyo mar saddexaad baa u mahadsantihiin